بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين طيبين الطاهرين أما بعد guddiga madaxa bannaan soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta wuxuu shaacinayaa oo uu soo saarayaa jadwalkii soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo habraaci doorashada ama habraaci xildhibaanada lagu soo xuli lahaa labadaas dukumeenti oo runtii ahaa laba dukumeenti oo aad muhiim u ah oo la'aantoodana aan doorashadanba ama soo xulista xildhibaanadaba aan la qaban karin marka ugu horeysa waxaan idin akhrin doonaa oo aan idin la wadaagi doonaa jadwalkii doorashada ama soo xulista ay ku socon lahayd marka xigana waxaan idin la wadaagi doonaa habraaci doorashada oo ayadana 15 qodob ka kooban jadwalka shaqo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddiga farsamada madaxa bannaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu shaacinayaa jadwal shaqo ee soo xulista xildhibaanada si loo dardargeliyo howlaha baaxadda leh ee horyaala guddiga oo ah dhisidda iyo howlgelinta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya faafinta habraaca xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta aan shaacin doono saacadan hadda la taagan yahay markii jadwalka aan akhrino kadib bishana waxa ay tahay 25 Febraayo 2020 lambarka labaad diiwaangelinta odayaal dhaqameedyada iyo tababaridda hanaanka soo xulista xildhibaanada hadduu ilaa yiraahdo beri oo 26 bisha Febraayo ah ilaa 29 bisha waxaa noo socon doona inaan odayaashii aan tababarno oo aan mataqaanaa ayagana aan u sheegno habkii loo soo xuli lahaa xildhibaanada iyo xildhibaanka ay soo xulayaan shuruudihii looga baahnaa ama laga rabi lahaa shuruudahaas oo ayaga naftirkooda si gooni ah aan u soo saari doono hadduu ilaa yiraahdo lambarka saddexaad soo xulista diiwaangelinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliya waxaa mataqaanaa bisha 1 ilaa iyo 10 hadduu ilaa yiraahdo aan qaban doonaa in xildhibaanadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya la soo xulo oo odayaashii ay soo xulaan la qabto waxayna arintaasi bilaaban doontaa 1 bisha lambarka afaraad ee jadwalka waxaa noogu qoran xalinta khilaafaadka la xiriira soo xulista baarlamaanka labaad ayaa noogu xigi doonta maadaama waxa la qabanayo ay tahay soo xulis xildhibaannimo waxaa dhici karta in meeshaasi ay ka dhalato muranadaasi inaan xalino ayaan ku talagalnay waxaana u qoondaynay waqti insha Allah hadduu ilaahay raado waqtigaasina waxaan ku dhamayn doonaa waxyaalihii khilaafaadkii yaryarka ahaa ee arrimahaasi keenay lambarka noogu dambeeya wuxuu noqon doonaa ku dhawaaqista iyo dhaarinta iyo howlgelinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanadii la soo xulay ee odayaashii soo xulay ee arintooda aan si fiican uga fiirsanay ee aan diiwaan gelinay ayaa insha Allah taala dhaarin doonaa arintaasi ayaana sameyn doonaa 16 ilaa 19 ayayna ku dhamaan doontaa jadwalkii shaqo ee aan soo saarnay maanta intaas ayuu noogu dhan yahay waxaan taasi noogu xiga inaan idin la wadaagna maanta hooshii kale ee aadka u adkeyd ee baaxadda weyneed ee aan qabanay oo ah runtii dukumeentiga ugu muhiimsan uguna adkaa ee aan ka diyaarinay arrimahan guddiga farsamada madaxa bannaan ee soo xulista xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 46aad 50aad 120aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 37aad 38aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay habraaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mabaadi'da iyo habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada kaasoo soo baxay 25 May 2019 isagoo ogsoon
in mudaxileedka baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya soo idlaaday si waafaqsan qodobka 39aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay ahmiyadda ay leedahay samaynta habraaca soo xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si loo xaqiijiyo in xulista xildhibaanada ku dhacdo si nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed ku dheehan tahay iyo horumarinta dhaqan dimuqraadiyadeed oo xor ah lana dhowro dhaqanka suuban ee ka dhaxeeya bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu soo saaray habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa soo xulaya odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee beelaha dega koonfur galbeed Soomaaliya si waafaqsan qodobka 37aad farqadiisa saddexaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sugidda diiwaanka rasmiga ah ee odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ku tababaridda odayaasha dhaqanka habka soo xulista xildhibaanada iyo xaqiijinta qoondada dumarka oo ah 20% si waafaqsan qodobka 37aad farqadiisa labaad loona xaqiijiyo metelaad loo dhan yahay bilaabidda xulitaanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka lambarka 5aad odayaasha dhaqanka waxay ka soo xulayaan xildhibaanada beelahooda iyagoo dhowraya awood qaybsiga beesha dhaxdeeda ah lambar 6 hubinta in tartamayaasha u taagan xilka xildhibaannimo ay buuxiyaan shuruudaha ka mid noqoshada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya lambar 7 xallinta khilaafaadka la xiriira soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya lambarka 8aad diiwaangelinta xildhibaanada xulan ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 9 ku dhawaaqista xildhibaanada xulan ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya lambar 10 guddoonsiinta shahaadada xildhibaannimo iyo dhaarinta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya si waafaqsan qodobka 3aad ee xeer hoosaadka baarlamaanka 11 guddiga ayaa ku dhawaaqaya maalinta uu qabsoomayo fadhiga koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 12 fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa shir gudoominaya xildhibaanka ugu da'da weyn si waafaqsan qodobka 4aad ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 13 soo magacaabidda guddi doorashada guddoonka baarlamaanka 14 guddiga farsamada ayaa siinaya taageeridda lagama maarmaanka ah guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka labaad si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah si waafaqsan qodobka 5aad ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 15 qabashada doorashada guddoonka baarlamaanka iyo dhaarintooda وبالله التوفيق